بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد لما أنت هلك شوكتي أنت خلاص عطت صحافة دبا وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن كان ورباهنا ده ما أنت أنو قبل نسوي ذا الشراء نبدأ قدومية حسب هذا معارضك وح كلفي ظروف تمان تضلكم مريو أيا كلفتي وحانو كسب سنة هي وأنو كهل دورنا موضوعية تاجن ما أنت وأنو لو ذاقي إنه برشة غير سومال لأنه دن قارهانا تاجرياش حسب هذا معارضك waxa ogtihiin oo qof waliba ka dheregsan yahay duruufta adag ee uu dalku marayo haday tahay maciishadii iyo sicir barka halku marayo haday tahay duruufta dhaqaale ee taagan ee ka dhalatay maamul xumada dawladda tan haday tahay doorashooyinkii la sugayay oo warwar badani ku gadaaman yahay kadib dhaqanka xukuumadda Muuse iyo madaxweynuhu sidee u dhaqmayaan ay muujiyeen oo ay ugu dambeysay faragelinta komishiga doorashooyinka qaranka oo ay faragelin qaawan ku sameeyeen madaxweynuhu ku sameeyay guddi loo diray kadib markay isdoorteen iyagoo xaq u leeyahay isdoortaan waana guddi madax bannaan oo xeerarka iyo sharciga dalku madax baneeyay markii ay isdoorteen kadib ayaa madaxweynuhu u yeedhay iyadoo ay 5 xubnood iyo 1 xubin yihiin wuxuu ugu yeedhay inuu mowqifkooda fargeliyo markay mowqifkoodii ku adkaysteen sidii ka muuqatay gudoomiyihii loo cusbay la doortay iyo warkii ay siiyeen warbaahintaba markay isdoorteen kadib waxa madaxweynuhu ugu yeedhay inuu mowqifkooda wax ka bedelo markay ku adkaysteen wuxuu magacaabay guddi waxaanu leenahay guddigaas oo dhex maaha waa guddi xisbi guddi qaran maaha guddi xisbiga kulmiye ka kooban buu magacaabay anaga nama matalaan labada xisbi mucaaradka hadaan nahay nama matalaan waa guddi aan dhex ahayn waa guddi aan guddi qaran ahayn waa guddi aan sharciyan loo baahnayn waxaanu ayideynaa oo taageersanahay komishiga doorashooyinka qaranku gudoomiyihii la doortay hadlay iyo haday mid kala doortaan wixii ka soo baxa baanu ayideynaa waxa xasuusin mudan xubnaha guddiga doorashooyinka qaranku laba xubnood baan ku lahayn mid uu iscasilo uu ka baxay hal xubin baa noo joogay xisbiyada wixii aanu soo magacawnay maalintan soo magacawnay baa noogu dambeysay oo aanu guddi qaran u aqoonsan annagoo hore uga qaylinay kuwii noocaas aanu hore uga qaylinay aanu markii dambe niri aan iska dayno ee aanu sidii doorashada ku qabanay oo uu 5 darafkiisa aanu tirinaynay 5 kamid aanu darafkiisa u tirinaynay oo 5tii mid markii hore gudoomiye loo doortay midna imka gudoomiye loo doortay waliba anigoo iska ururinaya inanta waanan marraba xaasha kalsooni xumo ku ganayn haddana hadii deegaan xataa la eegi lahaa deegaankiisa ka soo jeeda annagu sidaa ay ku doorteen baanu ku aqbalo aanu ku ayideynaa haday bedelaana sidii ku bedelaan baanu ku ayideynaa haday kii hore soo celiyaan ka horaanu sidii aanu hore u aqbalayna rabadaan ka hor way noo yeedhay guddigu waxaanu qabaynaa diiwaan gelintii doorashadii baan u diyaarinay qorshay noo soo gudbiyeen waanu ayidnay dabadeedna waxa dhacay isbedelkan iyaga ay u taala annagu se waxaanu cadeynaynaa inaanu komishiga doorashooyinka qaranka kalsooni buuxda siinay hore u siinay iminkana siinayno in guddiga la yiri waa loo saaray aanu aragno sharci darro dhexnaan ahayn xisbiyadu waxay diyaar u yihiin dhawaaqa ka soo yeedhay markii hore iyo markii dambaba guddiga doorashooyinka ee ayaan doorashadii iyo diiwaan gelintiiba waanu qabanaynaa saacad kastoo la qabto doorashadii madaxtooyada iyo diiwaan gelintii diyaar baanuna diiwaan gelintu waxay idin 20 bisha bilaabanto balse buuqana uu la bareeray madaxweynuhu ayaa laga horeysiiyay si loogu gogol xaadho kororsiimada uu doonayo kursiga ku sii joogo sharci darro ogaan baa looga horeysiiyay waqtigii doorashada loo diyaar garoobayay in komishiga la fargeliyo waxaanu leenahay ma aqbalayno doorasho wixii aan ahayn ma aqbalayno haddaad buuq u diyaar garowdeen ha ka cabanina waxaan arkay imka wasiirra hadlayo buuq iyo dhalinyaro meel ku shirtay waa la hadlayaa dadku inay cabiraan codkooda xaq bay u leeyihiin inay dareenkooda cabiraan xaq bay u leeyihiin
inay haddii lagu kalifo mudaharaad laamiyada u soo baxan xaq bay u leeyihiin dastuurkaana siiyey ninna uma diidi karo xuquuqdooda asaasiga dastuurku siiyey idinkaana dalbaday haddii buuq yimaado idinkaa dalbado casuubay waxaanu bulshada reer Soomaaliland u sheegaynaa waxaanu ka cabanaynaa aanu ka hadlayno dhalinyarada u soo baxayso dadku hadal haya mucaaradku diidan yahay waxa weeye madaxweyne 5 sano dhamaatay oo doonaya inuu sii fadhiyo oo markii uu qaban lahaa doorashada komishinkii carqaladeeyay oo aanu ka kari lahayn kaalay nala tartan kaalayo nala tartan waxaanu ka uu yahay dareenkaanu gudbinaynaa inuu sharcigii iyo dastuurkii iyo nidaamkii dalka u yaalay meel la iska dhigay waxaanu leenahay dalkan dictatornimo ka suurtagal maaha muusow mala waxaad ku riyootay inaad boqortooyo fadhidee boqortooyo ma fadhidee waqtigii uu ka dhamaado iimaanso 6 bilood baa ku hadhay 6 bilood ee ku hadhay haddaad doorasho ku qabanayso waxaad haystaa fursadii doorashada ku qaban lahayd laakiin se fursadaad ugu khasabto ma haysatid waxaan uga gudbayaa 18 May oo maanta aynu galayno waxaanu leenahay dadka reer Soomaaliland u diyaar garooba 18 May xisbiyadu way qabanayaan gobollada kala baxayaan kanay joogayaan qaarkood waxa weeye gobollada dalka oo dhan bay insha Allah taala u kala bixi doonaan waxaanu qabanaynaa insha Allah taala 18 May ama 18 May oo xisbiyadu ay si gaar ah u qabanayaan dadka qaar baa aan arkayay tilmaamayay lagama soo qayb galo oo cirra ma iman hebel ma iman 18 May mala 18 May waxay u yaqaaneen ama 18 May in Muuse laag fadhiisto waar Muuse markuu mucaaradka maalin riyaalamu barbar fadhiisan maalin 18 May ugu muhiim ugu tagi mayna halku joogo laakiin 18 May gaar baan u qabsanaynaa sharci nagu khasbaya iyo wax nagu khasbaya inaan Muuse ag fadhiisano tuu qabanaya la qabanno oo aanu fadhiisano naga maago diyaar uma nihin haduuna ixtiraam waayo na arki waaye annaguna halku joogo ugu tagi mayno 18 May gaar baan u qabsanaynaa waa u abaabulaynaa waanu damaashaadaynaa dadkaanu la wadaagaynaa dareenkooda xisbiyada mucaaradku arrintan soo korodhay aynu sheegaynay ee doorashadii inuu madaxweynuhu laabay oo hanaankii dimuqraadiyadeed dalka uu carqaladeeyay oo ay saldhig u ahayd komishinkii noo dhaxayn lahaa oo uu meeshii damcaynu ka saaro wada tashi baanu ka gelaynaa ku jiraa la wadaagaynaa bulshada aqoon-yahanka iyo waxgaradka iyo wixii Soomaaliland danaynaya waanu la fadhiisan doonaa waanu la wadaagi doonaa wixii uu xaq noo siiyo sharciguna ninna uga gaban mayno waxaan leeyahay kaga baxaya qolada xukuumadda ee marna caraynaysa marna warwaraysa aan saakaba arkay warwarkooda marna carna leh waa rag lama careeyo waa kuwa leh waxa ma samayn kartaano waa rag lama careeyo waa rag lama yaad waxa ma samayn kartaan haddaanu nabad qabno insha Allah taala waxa sharcigu noo saamaxo bun ka dhimi mayno mar walbana waxaanu ilaalinaynaa sharciga nabadgelyada horumarka iyo dimuqraadiyadda dalka ayaanu ilaalinaynaa taanu badbaadinaynaa waa taa waxay ka sheekeynayaan arkay waxaasa loo soo maray war mustaqbalkoodaanu doonaynaa inaanu maanta badbaadino wixii la soo maray waa history ma waxaad uga sheekaynuun history iyo waxaasa la soo maray historygaasi wuu jiraayo waa la soo maray waa kaanu kugu ixtiraamnay waa kay kugu doorteen waa ka kuraasta ku fadhidaan waa kaad maamuuska ku heshay laakiinse mustaqbalkoodii baad madow gelisay mustaqbalkoodii baa madow gelisay oo xukuumadda kulmiye joogtaa madow gelisay mana aqbalayso bulshadu annaguna waxaanu ku hogaaminaynaa dareenka bulshadaanu ku hogaaminaa waa mahadsantiin